Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalkeenan maantana waxaan uga hadli doonaa luuqadda ama afka Soomaaliga. Anigu waa yaabay maalmahan luuqadaha maxaa i daba dhigay. Siday ahaataba kusoo dhawow muuqaalka. luuqadda Soomaaliga ama afka Soomaaliga waa mid ka mid ah afafka ugu muhiimsan Geeska Afrika. waana ka rasmi wadamada iyo Djibouti. waxaa kaloo si weyn loogaga hadlaa qaybo ka mid ah Ethiopia iyo Kenya. wuxuuna ka tirsan yahay afafka loo yaqaano Cushitic oo ah laan ka tirsan bahda luuqadaha. Cushiticna wuxuu ka sii yahay bari. waxaana ku hadlo qiyaastii in ka badan 15 milyan oo qofood oo ku nool caalamka. af Soomaaliga waxaa la qoray sanadii 1972 waxaana lagu qoray xuruufaha Laatiinka 11 sano kadib markii la magacaabay guddigii af Soomaaliga sanadkii 1967. dood dheer kadib guddiga wuu talagafay. dowladii kacaankii ayaana dib boorka ugu jaftay guddigu. waxaana muddo 2 sano gudahooda lagu hirgeliyey qorista iyo barashada afka Soomaaliga. 18 nooc oo af Soomaaliga loo damacsanaa ayaa waxaa soo bandhigay afyaqaano kala duwan. guddigii af Soomaaliga ee shaqaynayay sanadkii 1961 ilaa 1972 ayaa markii dambe doortay fartii afyaqaankii la dhihi jiray Shire Jaamac Axmed, taasi oo horay isagu ugu tijaabiyey buugaag biirayaal oo bille ahaa, sida buug uu ugu magac daray Iftiinka Aqoonta, iyadoona ay jireen tartamo ballaaran oo dhanka xuruufta Carabiga ah. waxaana loo doorbiday arrimo dhaqaale, qalabkii wadanka yaalay iyo asbaabo kale. ololihii horumarinta reer miyiga iyo weliba qoristii af Soomaaliga. ololahaas ayaana lagu ballaariyey tirada bulshada ee taqaano ama garanaysa qorista iyo akhrinta af Soomaaliga. barnaamijyo kumanaan saacadood soconayay oo ka baxayay idaacadda raadiyo Hargeysa iyo raadiyo Muqdisho, iyo sidoo kale macallimiin 20,000 ah oo ay ku jireen ardadii dugsiyada sare ayaa u howlgalay in aqoonta aasaaska ee bulshada lagu qaado 2% lana gaarsiiyo 55%. mar ay UNESCO baaris ku samaysay isbedelka uu ummadda gaarsiiyey ololahaasi ee horumarinta reer miyiga. wakaaladda madbacadda tiyaatarka qaranka, wakaaladda filimada iyo sidoo kale wakaalado badan ayaa ka qayb qaatay barnaamijka qorista iyo horumarinta af Soomaaliga. lahjadaha af Soomaaligu way iska badan yihiin, haddana waxaa la sheegaa 2 lahjadood oo kala ah Maxaatiri iyo Maay. Maxaatirigu waa af halbeega Soomaaliyeed, cilmiga iyo culunta lagu barto, ahna midka qoran. lahjada Maayga iyadana waxaa loogu hadlaa ama lagaga hadlaa inta badan koonfurta Soomaaliya. qoristeedana weli si rasmi ah la iskuguma raacin, inkastoo muddooyinkan dambe dadaal loo muujinayo. af Soomaaligu waa luuqad ka kooban erayo tiraab iyo hawrar Soomaali ah oo ay mararka qaarkood ku qarsamaan ama soo dhexgalaan erayo Carabi ah ama Ingiriis ah. af Soomaaligu waa luuqadda ugu fudud qoraal ahaan iyo ku dhawaaqis ahaanba. sidaas ay tahayna ku hadalkeeda way adag tahay marka loo fiiriyo luuqadaha adduunka qaar ka mid ah. af Soomaaligu qoridiisu waxaa ka qayb qaatay aqoon-yahano aad u fara badan. xarfaha hingaadu af Soomaaliguna waa shaqal 5 xaraf ka kooban iyo shibane 21 xaraf ah. shibanaha oo kala ah ba ilaa ya oo intan idin muuqata oo xarfo waaweyn iyo xarfo yaryarba. sidoo kale shaqal oo kala ah shaqal gaab iyo shaqal dheer oo iyaguna saan idin muuqata u qorma. af Soomaaligu marka loo eego ficilada ama falalka iyo xarfaha ay ku kala dhamaadaan, meelaha ugu fudud waa tirooyinka 1, 2, 2 ilaa 1,000 ama ilaa milyanba. meelaha loogu hadlo af Soomaaliga waxaa ka mid ah Djibouti oo iyagana inta badan ay Soomaaliga ku hadlaan iyo wixii la mid ah. waxaa kale oo ku hadlo dad badan oo asal ahaan Soomaali ahayn oo qaarkoodba la sheego inay ku heesaan, balse tirada dhabta ah ee dadka ku hadla af Soomaaliga ama luuqadda Soomaaliya lama yaqaano. waxaase lagu qiyaasaa 65 milyan oo qof, kuwaasi oo ku kala nool caalamka. sidoo kale way jiraan aragtiyo kale oo gaarsiiya ilaa 25 milyan oo qofood. intaan ayuuna ku egyahay muuqaalkeena. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.